afkaygu amaantaada u fududaaye afkayguna amaantaada gacalooy u fududaaye. Assalaamu calaykum. soo dhawaada qaybta sharafta leh inta cusub subscribe iyo like iyo comment adduunka oo dhan noogu qabta ninkii la hadlayo waa bidaamiye been mashaage barqa banaankiisa degay janaalka aad daawanaysaan waa marqaati TV. soo dhawaada caawa waxaan rabnaa inaan ka hadalno laba barnaamij oo aan isleeyahay way habboon tahay in laga hadlo. barnaamijka labada barnaamij aan ka hadli doono midka koowaad waxay tahay gabdho Soomaaliyeed oo la soo bandhigay maalin dhaweyd fadeexadooda iyagoo wiilal suuminaya lagana dhigay wax challenge ama wax tartana lagu ciyaarayo laga dhigay oo ay in badan oo dad wanaagsan ay wajigooda qariyeen oo aniga aan qayb ka ahay oo aan wajigooda soo bandhigin iyagu intay mar labaad ku soo laabteen YouTube kii fadeexeeyay waxa ay la joogaan arin ka weyn. midda kale rabno inaan caawa ka hadalno waxay tahay halkeebuu ku dambeeyay xaalkii alfanaan mursal muuse iyo weliba xaaskiisii hore ee qadro intuu xaalkooda ku dambeeyay maxaa ka cusboonaaday maxaadan ka garanaynin. waxaan rabnaa caawa inaan ka hadalno labadaas qodob inaan barnaamijkeena caawa ku faaqidno maadaama marqaati TV uu yahay marqaati nool. haddii aan ku hormarno waxaa jirtay 3 gabdhood oo soo bandhigay mid ka mid ah youtuberada Soomaaliyeed isagoo xilligaa ku raadinaya views ku raadinaya ayuu soo bandhigay isaga iyo 2 wiil kale iyo 3 gabdhood oo isu shuminaya oo xujo la isku diraayo wiil gabar iyo wiil saa la isku shuminayo. gabdhihii mar kale ay YouTube soo fadhiisteen waxay leeyihiin wax cusub oo aadnan hore u arkin ayaan keenay sida ay aaminsan yihiin sida ay sheegeen baa idin sheegaya. waxay oranayaan haddana mid ka mid ah waxay oranaysaa iyadoo u jawaabayso yar kale oo YouTube oo reaction ka sameeyay falkoodii iyadoo u jawaabayso waxay ku leedahay hebelow adiga maxaa kaa galay hebelow adiga maxaa kaa galay waa la isu shumina maahane wax kale la sameynaa wax kale la sameynaa oo dhiman adiga waa garanaysaa macbuudko wax kale wax kale adoo fahmi kartaa wax kale hadee taa waa ciyaarihii Michael Jackson aa leelaa waa garanaysaa wax kale ani dad kale kama qabo wax kale aa la sameynaya haya adinka idintaa la qofkii wax kale rabo baas waa qaadan karaa adinka idintaa la laakiin anigu kuma jiro. wiil ag fadhi wuxuu leeyahay shanta la isla galaa shanta Cabduqaadir ordaayo meel ku kuf shanta boosh mataqaani shanta la isla galaa atuuq waay xal atuuqaay aniga ma sheegin iyaga weydii iyaga afkooda ka oranay wuu agtooda fadhiya gabadha yaa agtooda shanta la isla galaa ase inta qosol ku dhufatay shanta la isla galaa. marka waxaa idin weydiinaa aniga waxa iga dambeeyay aniga Soomaaliya waxaan ogaa gabar haddaysan aabaheed ka baqin macnaha haddaysan sumcadeeda say rabinin ay u baqdo aabaheed baa ku canaano doono haddii aaba ka baqina u cabsato walaalka ayaa ku dili doono ku canaano doono haddaysan u cabsanna mustaqbalkeeda waryaa ku guursanaya naag leedahay shanta liila galaa dhees yaa guursanaya ilaahay baan kugu dhaari adoo socoto bustaha lagugu dado maxaa ka wadaa shanta allah kugu dilay shanta maal isla galaa oo ma ku taageeranin dhahay shanta dowlad lasasiinaa bal ila daawada wax yidhiisa bal taas waa inaa marqaati u helaayo shanta la isla galaa dadkaa miiga yeelayaani adi afkaa ka dheh shanta la isla galaa aniga miiga yeelaysid may iida afkeeda ka oranayso waa iga rumaysateen oo fala waa aragteen shanta ala isla galaa wax cad adeer wax geed loogu soo gamba ma jirto adeer si cad bay dheen shanta la iskula tagaa
ilaahaygiina abuurtayo meeshas waa lagu kala guuro wallahi youtube waa dhibaato waa keena kowdhe laakiin aniga madaan kuu sheega abayday macaan waxaan ku oran lahaa sida aad ku socotid horta waa laga fiican yahay waxaa jirto sifaayo waxaa jirto wadooyin badan iyo sifooyin badan oo aad kusoo canbixi kartid waxaa jirto ciyaaro fara badan oo aad sameyn kartiin oo dadkan uga qosli kartiin laakiin in la isdhadhamiyo adeer dadka ma ka qoslaya wallahi bisugu qoslen kaali dhadhami dhanaan ma aha la issinaya adeerteed hay dambaajinida kowdhe taas eedu waa kaa diiday adeer adigana waa kaa diiday halkaas inta la tagteen sheeko kale ii keena ma garateen sheekadaas anigu waa diiday sheeko kale ii keena waxaa kuu soo hartay wiilasha war wiilashow gabar waa in la dhalatay war jooga war kuwiina in la dhashay yaa la dhadhaminin oo hadhowdii lala soo hor fadhiisanin dhadhamiskan ku dhadhamiya heblaaya dhanaan miya aysan dhihin maya wallahi waa xoogaa guduud oo ayaysan dhihin joog ana adaa kula hadlaa iyada iskaba dhaaf laakiin adiga walaasha ayaa la dhadhamin joog xaggaas awga baxo waxaa rabaa barnaamijka kaloo rabna inaan ka hadalno xitaa caawa halkuubuu ku dambeeyay xaaladii u dhexaysay lamaanayaasha soomaaliyeed ee ahaa sidoo kale dad isku dhalay caruur alfanaan mursal muuse iyo weliba fanaanada qatro xaalkoodii adinka waxaad ogeedeen in fanaankii mursal uu xaaskiisii ilmihiisa uu ka tegay isagoo door biday inuu mataqaanaa minnesota ku calamiiteeya isagoo door biday ayuu xaaskiisii iyo caruurtiisii ka tegay wuxuuna la midoobay laacib hore oo usoo ciyaartay 2 kooxood oo isaga ka horeeyay ayay usoo safatay waa kooxdii saddexaad ayuu ahaa marka waad ogeedeen arooskii hodan cabdiraxmaan iyo mataqaanaa sheekh mursal waxaa ka dambeeyay in xaalkoodii oo tramo u dhigtay isbaaro u dhigtay uu yidhi no waa inuu halka joogo mursal qadar saliim diriskeeda waa inuu ahaadaa waa isaga yidhaahday tram waa la eeday jiray waa nin raga waabo maqas oo kaca jecelkaas wuxuu yidhi jecelkaas waxba lagu dhisa wuxuu yidhi goolka horaa wuxuu yidhaa obsed ahaaba ma jirto waa inuu qadaro la joogaa laakiin qadro waa ay dul qaadatay waxa ay samaysay karti badan ayay samaysay oo sida fanaaniinta kale ma isan degdegin oo aydan hore nin kama soo qaban ilmaheeda ayay korsatay xaalka ayay dejisay hoosheeda iska wadatay iyadoo aaminsan sidii heesteeda hore ay ka ahayd iyo jilaal miraha korkayga saaran ayaa la gurtaa oo ay ula jeeday hadda iyo hadhowdii waxaan ahaa doonaa boqortooyo waxaa ku dhacaya ninkii la dhahaya mursal nafsiga saas intuu u wareeg oo khab ku dul yiri maxaa dhacay ma ogtaa no ma ogid tukanada kawarne qadra waxay ku jirtaa gabagabadii iyo weliba isku diyaarintii ugu dambeysay ay ku tegi lahayd dalka Canada waxaa nasiibku iyo calafku uu waafajiyey wiil dheera oo wanaag badan oo ka meeri doona dhibkii hore ay soo mudatay waxaa la arkayay qadro oo aad u dhoola cadeynayso qadro oo weliba taagan inay ku digato xaajigeedii hore inkastoo aysan sameynin sidii uu sameeyey ahaa inuu darashad walba la taagnaa jaceelkiisii fashilkaa laakiin uu u ahaa marin uu ku tegi lahaa America kaas oo fashilmaday sidaas ma aysan sameynin hadda waxay ku jirtaa qabanqaabadii ugu dambeysay wararkaan ka helay Hargeysa waxa uu sheegayaa in hadda qadro ay marayso kaliya inay soo ambabaxdo waxaa dalka Canada wiil jooga uu dhex maray iyada iyo isagaba jacayl kalsooni leh kaas oo u noqon doona aas-aaska nolol kale oo ay samayso qadar saliim oo ah gabar aad u wanaagsan gabar kamid ah gabdhaha ugu kartida badan ee deegaamada Somaliland runtii
aniga 2012 bishii koowaad iyo labaad ayaan jooga Hargeysa waxaan arkay dadka ama dhalinyarada adigoo waxba ka weydiinin qorshaha ama nolosha mataqaanaa mursal iyo khadro ayay kaaga sheekeynayeen ay ku leeyihiin waa lamaanaha qarnigan hadda waa jaceelka ama romantic maanta jiro waa iyaga qof kasta oo Hargeysa jooga wuxuu jeclaa inuu jaceelkiisu ekaado jaceelka mursal iyo khadro maysan filayn laakiin waxa gadaal ka dhacay laakiin wax walba horta waa qadar wax walba waxay ku dhacaan ama u dhacayaan siduu alla rabo laakiin wax walba waxa ka muhiimsan taxadar iyo dadaal maanta qofkii shalay kula soo jabay nolosha kula soo bilaabay inaad meel laxa uga tagtid ee aad meesha kala qabatid nolol kale adigoo markaasi doorbidaya dana yaryar aad bay u adag tahay laakiin ilaahay wuxuu guush ugu dambeyntii siiyey Khadro oo ah gabar aad u wanaagsan hadda ugu dambeyn Khadro waxay ku wajahan tahay dalka Canada halkaas oo ay uga bilaaban doonto nolol cusub iyada iyo waliba jaceelkeeda cusub waxayna ka dhici doontaa kamera wixii hore adeer kamera wixii hore tag saaxiibkana abo Hargeysa dhex jireena kaasay ayadoo bridge ka dul saaran soo wici doontaa taasa ugu sii daran taas dawlaashana sharaftay qiimaha qadarinta lahow barnaamijkeeni koobnaa caawa aan kaga hadlayna labada qodob ee taagnaa issue-ga macquulka ah halka ayaan ku soo gabagabeynayna waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo like iyo comment-iga baad nagu caawisaan si aan ugu dhiirano inaan wax badan oo ka qarsan ay idin soo bandhigno waa baaqab oo idin leh habeen wanaagsan afkaygu ammaantaada u fududaaye afkayguna ammaantaada gacalooyo